ku jira maxamed horta aan ku bilowno Donald Trump maxay tahay sababta uu kordhiyay horta canshuurahan isla markaasina hadda uu leeyahay 9 maalmood wadamada kale waan ka qafiifinaya ama waan joojinayaa canshuurihii lagu soo rogi lahaa laakiin shiinaha sidiisii ayuu u wadaa marka maxay tahay ujeedada arrintan uu ka leeyahay su-aashan waxaa ka jawaabaya professor asalkiisa uu shiina yahay oo layihahda Ling Gong waxa uu dhigaa cilmiga siyaasadda wuxuuna ka dhigaa jaamacad ku taalo gobolka Alabama ee la yiraahdo Auburn University waxa uu leeyahay waanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku kordhiyay canshuuraha wax soo saarka wadanka Shiinaha 25% halka uu dib u dhigay tilaabooyinkii uu dalalka kale canshuuraha ku soo rogay ayaa waxa ay muujinaysaa in Mareykanku uu wado istiraatiijiyad uu ku dardargelinayo dagaal uu ku beegsanayo wadanka Shiinaha sida laga soo xiganayo madaxweyne Trump talaabadani waxa ay jawaab u tahay waxa uu Shiinuhu ku tilmaamay in madaxweynaha Mareykanka uunan xushmeyneynin suuqa iyo sida uu shaqeeyo sida daraadeed waxaad moodaa in la sharaxayo sababaha dhabta ah ee Mareykanka ku qasbaysa inuu canshuurahan soo rogo maamulka Mareykanka ayaa u muuqda inuu aaminsan yahay inuu cadaadis ku saari karo Shiinaha dhaqaale ahaan si uu ugu qasbo inay tanaasulaad Shiinuhu u sameeyaan awoodiisa iyo murqihiisana uu tuso iyadoo Mareykanka la rabo in ay bilaabato doorashooyinkii gobolada oo lagu dooranayay madaxda Congress-ka iyo Senate-ka laakiin ayaa la leeyahay dalalka kale ayaa waxa ay ka doorbideen Mareykanka in ay wada xaajood la galaan markii warbaahinta la hadlayay madaxweynaha Mareykanka arrintan waxa uu ka yiri wadamo badan baa ila soo xiriiray af aan diblomaasi ahayn ayuu ku hadlay oo uu leeyahay way barayaan laakiin ereyadu isticmaalay erey wanaagsan ma ahayn waxaana muuqata Shiinaha in ay hadda qaadayaan tilaabada uu Mareykanku qaado mid la mid ah ama ka culus marka la fiiriyo waxa ay ku sheegeen tilaabooyinka uu qaaday madaxweynaha Mareykanka inay yihiin wax iska cayaar waxayna qaadayaan tilaabooyin gudasho oo muujinaya Shiinaha inaysan diyaar u ahayn oo kaliya isku taag dhaqaale inay Mareykanka la galaan waxay rabaan inay fursadan ka faa'iideystaan iskuna taagaan Mareykanka marka ay timaado masraxa caalamka ee ganacsiga waa gartay maxamed maaha markii ugu horeysay Shiinaha iyo Mareykanka dagaal ganacsi ay wada galaan 2018 waxayna ogeyn sidaan oo kale in gorada la isla galay maxaa iska bedelay tan iyo xilligaasi dhaqaalaha wadanka Shiinaha professorkan ayaa waxa uu leeyahay mowqifka Shiinaha ee hadda waxa weeye isbedel weyn ayaa ku yimid marka la barbar dhigo xilligii 2018 dagaalkii ganacsiga ay Mareykanka iyo Shiinaha galeen markaas oo Shiinaha ay la soo gudboonaadeen dhaqaale kor aad u fara badan isla markaasna aad ugu tiirsanaa suuqa Mareykanka professorkan ayaa waxa uu aaminsan yahay hadda xaaladahaas inay isbedeleen wax badanna iska bedeleen qaabkii uu Shiinaha u ganacsan jiray marka hore Shiinaha kuma tiirsana awal wuxuu ku tiirsanaa ganacsiga uu waxyaabaha uu soo dhoofiyay wadanka Mareykanka arrintaasi aad iyo aad ayay hoos ugu dhacday leeyahay professorkani sanadkii 2018 Mareykanka waxyaabaha Shiinaha laga soo saaray ee Mareykanka loo soo dhoofiyay waxay ahayd 20% ayay ku dhaweyd waxa uu Shiinaha dhoofiyo dhan marka la xisaabiyo laakiin markii la gaaray sanadka 2023 waxa muuqata in tiradaasi ay noqotay oo kaliya 12.8 isbedelkaas ayaa waxa uu muujinayaa dadaalka Shiinaha ay wax badan uga bedeleen nidaamkii caalamka uga ganacsan jireen hoosna u dhigeen inay ku tiirsanaadaan hal suuq oo kaliya suuqii Mareykanka waa mid labaad ayuu professorkan leeyahay wadanka Shiinaha culays xoog leh ayaa ka haystay wadanka gudihiisa oo waxaad moodaa in hoos u dhac ku yimid dhismayaashii faraha badan ay wadanka laga sameeyay iyo dhaqaale xumo inay ka timid iyo dad badan inay lacagihii wadanka Shiinaha ka bixiyeen oo milyaneero badan lacagtooda la baxeen iyo reer galbeedka oo
suuqii shiinaha ka wareegay oo meelo kale u wareegay tillaabooyinkaas iyo caqabadahaas ku yimid shiinaha ayaa culays badan ku keenay waxa ayna keentay si dadban inay u xoojiso adkaysigii waddanka shiinaha waxayna ku qasabtay dadka siyaasadda sameeyay shiinaha iyo nidaamka loo ganacsado inay qorsheeyaan dhaqaalaha dabayl kasta oo ku timaado inuu adkaysan karo ayna ka shaqeeyaan in dhaqaalahooda tartiib tartiib u kobco shiinahana waxay bilaabeen inay suuqooda ka dhigtaan suuq maxalli ah oo dadka shiinaha waxyaabay u baahan yihiin inay soo saaraan xudunna ka dhigtaan inay suuqooda isku haleeyaan waxayna ku talagaleen inay xoojiyaan kobcooda suuqa waddanka gudihiisa oo cidna kula tartamayn taas oo ka bixisay suuqyadii ee dibadda ee tartanka xoogga leh ka jiray waa gartay laakiin waxa baan leeyahay hadda arrintan dhaqaalaha iyo cashuuraha dheeraadka ah soo rogay Donald Trump shiinuhu waxay u arkaanba fursad maxay tahay sababtu wax lala yaabo waxa uu leeyahay professorkani tallaabooyinkan uu qaaday waalida ah xagga ganacsiga siyaasaddiisa ku salaysan ee madaxweyne Trump ayaa waxa ay siinaysaa buu leeyahay fursad iyo hadiyad waddanka shiinaha aynan filaynin shiinaha hadda waxa uu haystaa in uu ku eedeeyo culayska waddankiisa ka haysta iyo shacabkiisa ay ku hayaan in xoogag dibadda ah ay caqabado ku hayaan dhaqaalihiisa oo Maraykanku ka mid yahay hoggaanka shiinaha ayaa hadda farta wuxuu ku taagayaa cadownimada Maraykanka ay ku hayaan dhaqaalaha waddanka shiinaha taasoo laga yaabo in ay keento in ay ka jeediso cambaareyntii loo jeedin lahaa xukuumadda shiinaha dadka maxalliga u jeedin lahaayeen siyaasadihiisii wax ka khaldameen oo xagga dhismaha guryaha iyo wax la xiriira taa waxaa dheer baa leeyahay xukuumadda shiinaha ayaa waxay u aragtaa canshuuraha Trump inay iyada aalad u noqonayso inay shiinaha aalad ay u noqonayso ay dadka wadaniyiinta ee shiinaha ay u garaabaan dowladda xoojisana midnimada shiinaha gudihiisa ka jirta arrintaana waxay u ogolaanaysaa madaxweyne Xi Jinping mowqifka shiinaha in uu noqday mid dhibana u ah gardarrada iyo weerarka ganacsiga shiinaha ay ku hayaan wadamada reer galbeedka asagana uu difaacayo ganacsiga rabana ganacsi cadaalad inuu dhaco arrintaana waxay dardar gelinaysaa xukuumadda shiinaha muddada fog istiraatiijiyada ay leedahay inay hoos u dhigto inay isku halayso ganacsiga ay kula jirto waddanka Maraykanka isla markaasna ay dardargeliso iskaashi dhaqaale inay la yeelato awoodaha kale adduunka jira gaar ahaan Asia, Africa iyo Latin America Maraykanka iyo reer galbeedkana ay fiinistu u gaabiso waa gartay dhanka Maraykanka markaynu eegno sidee uu u tiirsan yahay Maraykanku badeecadahan shiinaha inkastoo la og yahay in inta badan uu jiro kala sooc iyo kala goyn ay jirto laakiin sidee uu Maraykanku ugu tiirsan yahay badeecadaha shiinaha Maraykanka ayaa hoos si toos ah ugu dhigay waxyaabihii uu ka soo iibsan jiray shiinaha xaqiiqadiisu waxay tahay dhaqaalaha isku tiirsan ee caalamka weli waxa weeye wax weyn weeye maadaama shiinaha uu yahay warshada adduunka ugu weyn waddanka adduunka ugu wax soo saarka badan waxyaabo fara badan oo loo dhoofiyo adduunyada saddexaad ayaa weli waxay ku tiirsan yihiin wax soo saarka waddanka shiinaha ama ha noqoto khayraadka ceeriinka ama ha noqoto qalab kale oo iyo warshadaha qaybo ka mid ah ha noqoto tusaale shiinaha waxa uu xoog ku haystaa suuqa iyo ganacsiga iyo wax soo saarka electronicska iyo warshadaha waxaadna moodaa in waxyaabaha uu soo saaro lagu isticmaalo warshadaha kale ee la dhisayo suuqa Maraykankana ay yimaadaan laga soo bilaabo daraasad la sameeyay 2022 waxay muujinaysaa in dowladda Maraykanka ay ku tirsan tahay wax soo saarka xagga shiinaha marka la fiiriyo 532 qaybood oo xagga wax soo saarka ah la'aantiisna una Maraykanku shaqayn karin
waxaa weeye afar laab weeye waxaa dardar galay maraykanka sida ugu tirsanaa ee wadanka shiinaha sanadkii 2000 wax soo saarkiisa. dhinaca kale shiinaha ayaa kala bar ka dhigay waxyaabihii wadanka maraykanka uu soo dhoofin jiray, isla markaasna waxaa dardar galay in shiinuhu uu dagaalkii ganacsiga oo lala galay aawadii oo wax badan kaga faa'iidaystay. intaa waxaa dheer in nidaamka wax lagu kala iibsado iyo sida wax loo soo saaro iyo warshadaha sida isugu xiran yihiin ayaa waxaad moodaa shiinihii inuu bedelay qaabkii wax u samayn jiray. hadda maraykanku waxa uu rabaa inuu suuqa dhigto Vietnam inay wax u soo saaraan warshadaha u wareejiyo Hindiya iyo Mexico. arrintaas laakiin muddo dheer ayay u baahan tahay in la qorsheeyo, maaha wax habeen iyo laba iyo bil iyo sanad lagu samayn karo. waa gartay waayahay waqti dheer bay qaadanaysaa waa tiri. marka sidee bay siyaasadda ganacsiga ee Trump ay u wiiqi karaan saameyntii maraykanku uu ku lahaa bariga iyo koonfurta bari ee Asia oo aynu ognahay inuu si weyn saameyn ugu lahaa? marka taa maxaa ku imaan kara? shiinaha ayaa waxaa la leeyahay wuxuu haystaa agab fara badan oo maraykanka kaga aarsan karo oo u adeegsan karo sidii aalad ahaan oo ka fog baa la leeyahay isku dayashadan canshuur baa igu soo rogtay canshuur baan kugu soo rogayaa ka fog. midda ugu weyn oo ugu culayska badan waxa weeye in shiinuhu uu la wareegi karo maadaama uu haysto waxa ugu badan ee maraykanka uunan haysan ee ah suuqa macdanta dhifka iyo naadirka ah ee maraykanka uu iibsado. waxaad moodaa in loo adeegsado nidaamka difaaca militariga iyo teknolojiyada casriga ah. shiinaha ayuu maraykanka iibsadaa. shiinahana waxaad moodaa 72% khayraadkaasi dhif iyo naadirka ah inay u dhoofiyaan wadanka maraykanka. bishii March iyo bishii April 2025 shiinaha waxay ku dartay liiska shirkadaha waxaas ka baac mushtara kuwa ay xakameynayso oo ay dhunta ku dhageyso. waxayna bartilmaameedsanaysaa shirkadahaasi in ay muhiim u yihiin macdanahani la-aantoodna ayna shaqaysan karin. macnaha waxa weeye meel khatara ayaa maraykanka laga hayaa. intaa waxaa dheer shiinaha ayaa wuxuu bartilmaameedsan karaa qaybaha ganacsiga ee nugul ee wadanka maraykanka sida xagga beeraha. digirtan la yidhahdo soya iyo digaaga laga soo saaro wadanka maraykanka intiisa badan shiinaha ayaa loo soo geeyaa. waxaana soo saara gobolada xisbiga jamhuuriga ee Trump laga soo doortay. waxaad moodaa shiinuhu inay beegsadeen dadkii isaga taageerayay oo ay ceega ku dhageen bartilmaameedna ay ka dhigteen. waxaana shiinuhu uu kala noqday shatiga saddexdii shirkadood ugu waaweyneyd ee digirta la yirahdo soya beeri jiray dhoofin jirayna. waxaa sidoo kale uu beegsaday shirkadihii waaweynaa ee ayagana digaaga ku lug lahaa. shiinaha marka wuxuu awood u leeyahay inuu cadaadis saaro shahaadadana kala noqdo iyo shatiyada shirkadaha waaweyn ee xataa teknolojiyada sida Apple iyo Tesla oo ku tiirsan wax soo saarka wadanka shiinaha. tilaabooyinka noocaas waxay khatar gelinayaan inay canshuurtii ay heli jireen shirkadahaas waaweyn iyo shirkadaha laga leeyahay xisbiga jamhuuriga meelaha laga taageero dhunta lagu dhago ay hoos u dhigayso faa'iidii heli lahaayeen. waxayna dhalinaysaa baa leeyahay midaasi maamulka Trump in ay dadkaasi ku kacaan, gaar ahaan marka la fiiriyo Elon Musk oo ganacsade weyn oo saaxiibkiisa dhowha ayaa ganacsi ballaaran ku leh wadanka shiinaha. marka waxaad moodaa dagaalkii inuu xerada Trump soo galaba. waayahay annagoo ka qaadayna marka xerada inuu soo galay waxaa la leeyahay marka gudaha maraykanka sidee arrintaas u saameyn kartaa oo Trump laftigiisa ay ugu keeni kartaa dhibaato? khabiirkan ayaa wuxuu leeyahay shiinaha ayaa u arka tilaabadan dardarta ku jirta ee waalida ah ee madaxweynaha maraykanka uu waday ee istiraatiijiyada canshuuraha maaha oo keliya mid xagga dhaqaalaha dagaal ku keenaysa, sidoo kale waxay furaysaa nidaam caalami ah oo cusub. Trump ayaa waxaad moodaa canshuurahan uu kordhiyey inay dardar gelinayso
wadamada bariga iyo wadamada koonfurta bari Asia in ay Mareykanka iyo xulafo la ahaa muddo dheer wadanka Mareykanka inay ka fogaadaan sababtoo ah canshuuraha ayaa ayaga saameeyay. taasna waxay u abuureysaa taasi fursad wadanka Shiinaha sida khabiirkan uu leeyahay dardar gelisa in wadamadii gobolka oo xiriir kala lahaa ay dhinaca Shiinaha u janjeersadaan. bisha March 2025 Shiinaha ayaa waxa uu martigeliyay shir 3 geesood oo ay ka qayb galeen Japan iyo Kuuriyada Koonfureed. waa markii ugu horeysay muddo 5 sanadood ah iskaashi horumarneed ee gobolkaasi ay ka dhacdo. labadan dal ugu weyn waa laba dal saaxiib dhow ah wadanka Mareykanka. maamulkii Mareykanka ee horena oo Joe Biden kharash badan ayuu ku bixiyay sida uu saameyn ugu yeelan lahaa si uu la tartamo wadanka Shiinaha. intaa waxaa dheer madaxweyne Xi ayaa hadda waxaa laga yaabaa in uu safar diblomaasiyadeed ku maro sida khabiirkan halku dhigayo wadamada koonfurta bari Asia. wuxuu booqanayaa Vietnam, Malaysia, Cambodia si uu xiriirka ganacsiga wadamadaas la leeyahay uu qotada ugu dheereeyo. tilaabooyinkaana waxaa laga yaabaa in ay dhinac u turto isu dheelitirnaankii xagga ganacsiga ee Mareykanka uu ku lahaa gobolkaasi isla markaasna Shiinaha in dhinaciisa loo weecdo maadaama muddo dheer Mareykanka uu deegaanadaasi maal gashanayay 10 sano. hadda waxaad moodaa Shiinaha inuu fursad helay uu ku xodxoto ama ku shukaansado wadamadaas si ay xiriirkiisa u soo galaan. waa gartay xodxodasho cajiib ah maraysa arrintu. waanu imaan doonaa Maxamed qobarada waxay tiri laakiin waxaan rabaa inaan eegno dhaqaalaha Shiinaha iyo sidoo saameynta ugu yeeshay adduunka rubca qarniga ugu horeeyay qarnigan. arrinkaasi bal hadda inoo faahfaahay. marka Trump istiraatiijiyadiisa la fiiriyo iyo qaabka ay u shaqeynayso waxaa xusid mudan daawadayaasha HBN inay ogaadaan ay tahay in siyaasadan uu hadda ambaqaaday inuu mar horena bilaabay dagaal sidaas oo kale ah. laakiin hadda waxaan fiirinaynaa laga soo bilaabo sanadkii 2000 ilaa iyo sanadkii la soo dhaafay 2024 sida uu ahaa dhaqaalaha adduunka. qariidada korkeeda ay ku taala 2000 suuqa adduunka sidaas ayuu ahaa. buluuga aad arkayso waa calankii Mareykanka weeye. ganacsiga caalamka ee Mareykanka ku tiirsan waxa uu ahaa wadamada adduunka marka laga reebo Shiinaha iyo wadamada yar ee Afrika kaliya ayaa xiriirkiisa ganacsiga lahaa. inta kale waxaa si dadban iyo si toos ah ay suuq ugu ahaayeen wadanka Mareykanka iyo saaxiibadii. laakiin 2024 qariidada fiiri Shiinaha waxa uu la wareegay suuqyadii oo dhan marka laga reebo Mareykanka iyo in yar oo kooban oo Yurub ku taala iyo Israa'iil. Shiinaha isbedelka uu ku sameeyay muddadaas 25 sanadood ku dhow ee xagga ganacsiga caalamka ayadoo aan hadalba la sheegin ayaa ayadoo sawir arki kartaa. suuqyadaas oo dhan Mareykanka ganacsigiisa waa laga saaray. Afrika oo kaliya haddaan ka hadalno shirkii ugu dambeeyay ee madaxda Afrika ay kaga qayb galeen magaalada Beijing waxa ay soo heleen 53 bilyan oo kaabayaala wadooyin tareemo dekado. Mareykanka iyo reer galbeedka 50 sano ee la soo dhaafay lacagta ay Afrika geliyeen xataa ma gaarayso 150 bilyan. lacagta uu sanad walba Shiinuhu geliyo qaaradda Afrika iyo ganacsiga uu leeyahay ayaa waxay ku dhowdaa 300 bilyan. marka isbedelkaas weyn ayaa yimid. waxaadna moodaa xaaladii ganacsiga caalamka inay isbedelayso. Shiinahana hadda sida muuqata dagaalkan waa u darbadeen diyaarna u yihiin. waaya maxay marka qobarada ka tiri ku soo gabagabayna qobarada waxay ka tiri bal inaga waran Maxamed gaar ahaan qabiirada Shiinayska dhankooda ayagana waa aragna qobarada kale. su'aashaas waa su'aal aad iyo aad u fiican. qobarada Mareykanka iyo reer galbeedka iyo wadamada kale warkooda waa laga dhageysan yahay. laakiin Shiinaha waxaad moodaa arrinta inay sii fogeeyeen
nin khabiira oo arrimaha dhaqaalaha ku takhasusay oo wadamada reer galbeedka gaar ahaan Maraykanka wax ku bartay oo mid ka mid ah idaacadaha reer galbeedka ay wareysanayeen ayaa u sheegay xaqiiqo ka yaabisay dadkii dhegeysanayay. waxa uu yiri tallaabo kasta oo Donald Trump qaado annaga waxba nama yeelayso. Shiinaha waxay leeyihiin xadaarad 5,000 oo sano ah. 5,000 oo sano waxyaabo badan ayaan la soo tacaamulay. wax naga halaabay ma jiraan. suuqa caalamka marka la fiiriyo Maraykanka kaliya suuqa maaha. xaqiiqada jirta ayaa waxay tahay qaryadii wax yar ka hor aan dadka tusay ayuu ninkani macluumaadkeeda ogyahay. Maraykanka waxa uu yiri dadkiisu waxay leeyihiin ama ka badan ilaa 300 milyan 350 milyan. waxa uu yiri marka dadka dabaqada dhexe ah ee wadanka Shiinaha ayaa ka badan shacabka Maraykanka oo dhan. si kale loo dhigo 400 milyan oo qof oo dadka dabaqada dhexe ayaa Maraykanka ku nool. waxa kale oo intaas ku daray Maraykanka haddii uu cunaqabatayn ku soo rogo wadanka Maraykanka oo wadanka Shiinaha ama uu wax ka gadan waayo suuqa adduunka Maraykanku saameyn weyn kuma laha. suuqa adduunka badeecada waxa uu ku qasban yahay Shiinaha inuu la tartamo. qof walba oo lacag haystana markii ay noqoto badeecad Shiinaha uu soo saaray ee mid Maraykanku soo saaray waxa uu door bidayaa oo calaamadeeda aqoonaya oo hore u isticmaalay ama ayadoo la isticmaalayo waa arkay midda Shiinaha. marka waxa weeye cid la tartami karta Shiinaha ganacsigiisa ma jirto. ganacsiga Shiinahana maaha mid dagaal ku salaysan, waxa ku salaysan mid isxurmeyn ah iyo wada shaqays. Maraykanka hadduu arrintaasi diido ayuu ku soo gabagabeeyay ninkan khabiirka ah. Shiinaha wax ka gala ma jiraan, asaga isgo'doominaya. waayahay maxamed aad baad u mahadsan tahay halkaas